السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليغا قاليغا waa idin salaamay dhammaan meel walba aad dunida ka joogtiin. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena Huda Binti Mukhtaar, subscribe, like, share, comment nagu caawi. dabcan codsi waaye qasab maaha. bariyaan kala maqnaynee barinaya ma barideen walaalihayga qaaliga. ilaahay ha idin xafido, allah idin barakeeyo dhammaan meel walba aad dunida ka joogtiin. walaalihayga qaaliga caawa waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso aad u xanuun badan. gabadha waxay tiri magacaygu waa Ibtisaam. Sacuudiyad waay gabadha waxay tiri meel baadiye ahaan ku dhashay. baadiyo yacni Sacuudiga baadiyihiisa magaalo dhan weligay ma arkin ay dhahday. anigoo 14 jir ah oo 4 wiil iga yar yihiin hooyaday aabahay kala tageen. aabahay hooyaday aad u garaaci jiray dhahday. madaxa laga gala hooyaday. markii dambe waxay dhahday ani hooyaday waxaa laga soo guursaday baadiyaha anaga aan deganahay meel ka sii shisheeyso oo baadiye ah iyadana. waxay dhahday aabahay woo waday hooyaday markuu furay woo waday guriga ehelkeeda uu celiyay. walaalaheedna ma daryeelinay dhahday qolay ku soo xireen. waxay tiri anaga iskoolaan dhiganaynay tiri ani iyo 2 wiil iga yar, labada kaleetana maba gaarinay dhahday iskool. ilaahay amarkiis waxay tiri shaqaalaha noo joogta anaga hooyadeen markay joogtay tiri markii hooyaday la furay badaalkii hooyadeen anagaa galnay dhahday. aabaheen haddoo imaado ilaa waa qof bartay inuu wax garaacay anaga loo waxay tiri oo nagu casabi jiro oo nagu xanaaqi jiray. anigana waxay dhahday wiilasha iga yar aad u badbaadin jiray tiri. wax walba haday halayaan anaa halayaan dhihi jiray. ilaahay amarkiis muddo yar hadii la joogo aabahay naagoo soo guursado oo ilaahay ka cabsanayno aad u naxariis daranay dhahday. habeenkii la soo guursado habeenka ku xiga waxay dhahday shaqaalada maxaa dhahaa ii sheeg gurigeeda ha la geeyo, yacni wadankay ka imaata ha loo celiyo. gabadhaada shaqaalo ka noqonayso guriga maba u baahna shaqaalo. gabadhaada waxay qaban karta ma lacag lagu bixinaa. ilaahay amarkiis waxay tiri marar badan ee isku dayda inay iskoolka maxaa dhahaa cagta iga saarto oo iskoolka ii diido. waxay tiri qolka shaqaalada ani ilmaha nala seexinahay dhahday. aabaheen horta dan oo laga leeyahay aaba iska yar. marka waxay tiri dadkana way kala naxariis badan yihiin. horta badowda waxaa waaye dadkan reer baadiyaha aad ay u naxariis daran yihiin. waxay tiri ilaahay amarkiis iskoolka waa u dhuuman jiray dhahday. anigii 2 wiil iskoolka dhiganayna subaxdii waxay dhahday ilmaha ayagoo beerka gacanta ku hayaan marmar iskoolkana loo diraahay tiri sababtoo cuntada xataa way naga ilaalinaya. bahdilka iyo dilka iyo gaajada waxaa iisii dheeraaya dhahday. walaalkeed iida la dhashaa intoo imaado oo waxay tiri jaanis igu gaadayo meel haddii meel cidla aniga aan joogo ama jikada aan ku jiro iyada ay maqan tahay qolka ay ku jirto kaleeta aabahayna oo joogin woo ii imaanahay tiri woo itaataabana. anigii anoo ciil iscunaya tiri oo isnacay. markii dambe waxay dhahday markuu yimaado wuxuu leeyahay gabadh ninkaaga dhalashaha iisoo korayso kaala walaalkay shaa u kari aada iigu qaylinaya tiri waana ka cabsadaa iida. waxay dhahday markii dambe waxaan samayn jiray tiri 2 wiilo iga yaraan gacanta kasoo qabsan jiray dhahday marka asaga shaha u karinayo marka u geynayan waa idaba socon jireen tiri. markii dambe waxay tiri jaanis markaa u diido oo arkay inaa mar walba aan ka leexleexanayo iska ilaalinayo. waxay dhahday imaashihii guriga wuu yareeyay tiri ninka walaalkeed ahay. subxaanallah. marka waxay dhahday muddo kadib adiga waxay tiri iskoolka waxaa aadahay dhahday anoo bahdilan anoo oo waxay tiri dhar wasaq ah wato anoo dilan. marmar waxay dhahday usha ma aragta oo dharka la sursuro oo armaajada ku dhex jirto intoo ay soo qaadatay igu daqreehay tiri dhiigiyo meelaha iga yaal oo si fiican iskaga fufujinin xanuunkii ahaay dartiis maxaa laha iskoolka aadaa. markii dambe waxay tiri macalimada waxay dhahday adiga waxay dhahday bilooyinkan dambe caadi ma tihid iskoolka adoo bahdilanaa imaane adoo saan u taalida imaane yaa iskoolka iska dhaafiya adoo nadiif oo qurux badan imaw sidii awal ahaan jirtay. marka waxaan dhahay tiri macalimiinta ayaga abley dhahaan yaa abla aniga waxay dhahday maxaa dhahaa ma yeeli kariyo marata aba anaga hadda aan la noolnahay hooyadeenna waa la furay hooyadeen madaxaa laga galay guriga ehelkeeda loo celiyay waxna daryeelaya male. marka carabta waxaa waaye haddii oo hooyadii aabaha ay kala tagaan xaqa ilmaha aabaha yeelanayo aabaha looga tagaa ilmaha aabaha korsanayo. marka waxay tiri ilaahay amarkiis ciilkii iyo cadaabtii anoo iskaga jiraa macalimadii waxay tiri kawan haddaa dacweysid aabaha xaqaa leediin xaquuqdiin waa la idinkaaga qaadaya. markaasaan waxaan dhihi tiri aabay ani hadda daan dacweeyo intaa anigii 4 wiil iga yar nala wado ama meel nala dejina oo dowladda waxna siinay waa maya khalaas dhibkeen iyo rafaadkeen leem ku jirayno. aabay waxay tiri kastoo hala soo canaanana waa imaana naagtoo leeyahay ilmaha wax ma siisid ilmaha ma daryeeshid khalaas waa laga soconaya tiri. aabay haddoo baxana naagta dilkeeda iyaal aabay haddoo yimaadana dilkiisa iyaal maxaa ka dheefahay dhahday. marka waxay dhahday
dacwana ma geli kariye saan ilaahay maxaa lahaa ha iiga badbaadiyo. marka waxay dhahday marmarka qaar aniga cuntada waa xadi jiray dhahday, laakiin adooga markuu joogo cuntadana la siinaayo oo adooga la siinaayo annaga waa nala siinaya yacni adooga hortiisa, laakiin labada wiiloo yaryar iyada waxba ma ka haleyn jirnay tiri, mana garaaci jirin yacni cuntana ma u diidi jirin. laakiin waxay dhahday aniga iyo labada wiil oo waaweyn oo iskoolka dhigano cuntada waa naloo diidi jira adooga intuu maqan yahay leewa, laakiin aabbaha intuu joogo hal wiila wax ku cunaynaa. badanaa marka adooga ma joogee intuu maqan yahay horta waxay tiri gaaja kowna looga siinayo. ani marka waxay tiri habeenkii axadahay dhahday rootiga iyo jubnada iyo waa ismarinahay dhahday bacaan ku xiraa shandadahan ku riridanaynaahay tiri subaxii markaan baxeeno. laakiin labadaas wiil ayagoo soo jeedan hadday hurdo kasoo kacdo waxay cunaan way siin jirtay, marmarne hadday iyada kasoo horkacdo waxay cunaan way u diyaarin jirtay, caanahooda iyo cuntadooda iyo way siin jirtay dhahday. yacni ilmahaas been kama sheegayay tiri naagta, ilmahaas waxba kama haleyn jirin. ilaahay amarkiis waxay dhahday muddo haddii la joogay dhahday oo aniga 16 jir aan gaaray aabbahay wuxuu igu daray tiri wiil asagoo kaleeto oo walaalkiis dhalay oo adeerkay dhalay oo igu daray dhahday, oo naagaha bahdilaayo dhowr naag soo furay oo xun oo guri ku leh meesha oo igu daray dhahday. silicii iyo saxariirtii maxaa lahaa isheeg markaan 17 jir gaaray gabaraan haystay dhahday, gabaroo iiga dhalay rafaadkii woona i furay tiri, laakiin tabti aabbahay hooyada ula dhaqmaayo ila dhaqmaayo tiri, bahdilka dilka rafaadka canaanta. waxay dhahday anoo walwal ihaayo oo ka walwalsanay tiri 4 wiil meesha aan uga soo tagay ilaahay amarkiis ninkiiba inacayay tiri oo i furay. bas wuxuu i dhahay tiri gabarta ma haysanee gabaraa u dhalay tiri gabarta ma haysanee mase waa kaa wadanaa hooyaday u geysanaa. marka faamiliga dhan waxay tiri baadiyahaasaan wada degannahay, laakiin laasuma naxo nin hadduu naagta dilana caadi waaye, haddii oo naag aabbaha soo aroosay ilmaha ay bahdisho caadi waaye. sababto ay waxay tiri nolosheenaaba waxay iska tahay tiri rafaad iyo dhib iyo canaan iyo bahdil iyo macnaha ilmaha waa la xakameynaa, naagaha waa la xakameynaa, rafaadkaasa iskaga jirnay dhahday. subxaan allah. waxay tiri alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxay dhahday waa la isoo furo guriga usoo noqdo, waxay dhahday naagta gabartan iyo cunugtay wadatabo ma arki kari, 4 wiil waa haynaa laakiin gabartaada iga baxdo. anigana waxaan dhahay tiri haddaan baxaayo wiilashayna hore u wadanaa. calaa kulli xaal ninkii adeerkay dhalay oo i furay tiri on gabarta u dhalay wuxuu yiri oo ilaahay naxariis ku soo dejiyay kuma rabiyo dhahay, laakiin gurigii aan kugu guursaday asaga iska lahay tiri gurigaas iska deg. aniga iyo walaalahay gurigaan soo degnay dhahday, gurigii haddaan soo degnay tiri wax aan hayno male, qofna yacni na masruufayo waxna siinaayo ma lahan. ilaahay amarkiis waxay tiri shaqaa u dhuumin jiray tiri, cidaha usoo shaqayn jiray. wiilashiina subxaan allah walaalahay way i garab istaageenay tiri, waxbarashadooda iyo tacliintooda xoogga saaray dhahday. anina waxbarashadii nusaaba la iiga reebay dhahday, jaamacad iska dhaafay iskoolkiianba dhammayninay dhahday. ilaahay amarkiis waxay tiri anoo xaafadaha iskaga soo shaqaynaayo oo maxaa laha waxaan soo helana ilmaha u keenaayo, wiilashina ayagana waxay baranayaan ay marmar baxayaan ay tiri tuulo kale oo noo dhow ay tagayaan oo waxay soo helaan ay ii keenayaan. ilan waa la weynaana noloshana way soconayhe, wiilashina ay weynaadeen ay soo aqliyeysteen oo labadii yaryar iskool gaareen oo iskoolkooda dhex u maraayo. ilaahay amarkiis waxay tiri nin maalin maalmaha ka mid ee walaalkay wuxuu kasoo raacay dhahday tuulo anaga noo dhow. marka ninka waxay tiri faamiligiisa iyo eelkiisa oo dhan tuuladay degan yihiin, laakiin waa nin magaalada deganoo nin iska shaqaysta ah. walaalkay wuxuu kasoo arkay dhahday oo kasoo raacay tuuladii laanuu faamiligiisa inta degan ii sheeg oo usoo socday. walaalkay dhowr mar tuuladaas ku arkay oo maalin soo raacay. hadduu soo raacay walaalkay guriguu galaa iyo wixii uu kala ogaaday ina hebel ahay, aabahay iyo faamiligayga o dhan wuu yaqaanay tiri ina hebel inaan ahay oo anaga ninkaasna dhalay oo inta degannahay oo ninkaas i furay, waxaasoo dhan wuu soo ogaaday dhahday. markaasoo maalin anoo oo baxaayo oo guriga ka baxaayo wax badan oo i raaqibay tiri oo i waardiyey daba socday, maalin anuu guriga ka baxaayo ii wacay. markaasaa meeshaan waxay tiri mamnuuc waay nin kaleeto oo inaad la hadashid, nin islaameed inaad la hadashid, nin oo walaalkaa ahayn inaad banaanka ula baxdid ama aan ku qabin ama aad la istaagtid mamnuuc waay dhahday. yacni carabta dhaqankoodaaba saas ninka iyo naagta hadday kala tagaan xaqa ilmaha waxaa yeelanaya aabbaha. marka waxay dhahday horta rafaadka oo naagta aabbaha waa kasoo baxnay tiri, laakiin rafaad kaleeto oo waxaana haysto nolol maalmeedkeena anaga silac iyo saxriir aan ku keenoynahay dhahday, leannu qof waxna siinaysa male.
marka waxay tiri ilaahay amarkiis kan cunugta igu furayne marmaro wax igu tuuraahay dhahday inaan walaashiisa ahay in adeertiisa ahay tiri marmaro wax igu tuuraa marmarna wuxuu dhahaa ha isoo sheeganin war cunugta iska keen waaba i dhibtay adige ala kulli xaal adiga nusnuskaas iyo rafaadkaas iyo dhibkaas iyo waxaas anagoo iskaga ceeshayno aan ninkaan maalin i arkay markaas wuxuu dhahay in hebel inaad tahay waa ogahay hooyada aabaha ay kala tageen hooyada madaxa looga jiro wadanka yani meeshii laga soo guursado loo celiyo waxaasoo dhan waa la socdaa ma fahantay cunugan yarka ahaa maalin arkay aan soo raacay guriga galayaan fiirinayo cunugan tuuladaas oo kasoo shaqaystaa maxaa dhahaa kan weyn oo jaamacadda dhiganayo waay marka waxay tiri cunuga wuxuu idhahay tiri cunugana aan soo arkay saasaan usoo dabagalay inaa inta degantiina waa ogaaday marka walaalay waxaan rabaa guur xalaal ah ina adeerka inuu ku guursado gabar kaa dhalayo gabartiina uusan kaa qaadan oo kaaga tagay waa ogahay markaasaan waxaan dhahay tiri aniga waxbarashadeyda nusaa uga tagay rafaad iyo dhib iyo waxaan kusoo koray bahdil iyo zil iyo adi silacaa laga sheekeyn karin ma fahantay marka silacaasa haddana intaa aabahaynin iigu diray oo cunug la iiga dhalay walaalahayna aan soo koriyay tiri dhibkaas waana u bartay tiri hadda waa la qabsaday dhibkii hadda waxaan ka ishtakoonaya ama aan ka dacwoonaya ma ahan laakiin dhibkaas ani wax maxaa dhaha kusoo koray ilaahayna subxaana watacaala dhibkii waa iga bixiyo kan hadda aan ku jiro mid ka dhib badanaa soo maray marka walaalow aniga nin iyo dhibkiisana hadda ma rabee walaalow adigana bintul xalaal oo kaleeto saalixada ilaahay kuu sahlo anigana idhaaf walaalow noloshaan hadda aan iskaga jiro waa ku qanacsanahay maya walaalay waxaan kuu ballan qaadaha oo idhahay tiri waxbarashadaada inaad dhamaysatid tuuladana waa kaawadaa magaalaan ku dejinaa waa basharabou dhahay hooyadaana waa kuu soo wadaa waana kuu daaweynaa wallahi saas markoo idhaa waa farxee dhahday alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ka ogolaaday tiri aabahay iga doonaan dhahay tiri inkastoo aabahayba aw meel nagu ogeyn ilmo inay u joogaan in kalaba shaki kaa galaa adiga aabahay iga doona aabihii oo iga doontay markaasoo wuxuu dhahay tiri maxaa dhahaa ninka adimaa keensatay adimoo kula soo hadlay ha aaba anoo ila soo hadlay qalaasaad waxay tiri ninkii ilaahay subxaana watacaala calaf iigu daray nabsi baxow ii noqday tiri nolol heer sare ahaan gale magaaladoona soo dejiyay tiri wiilashii waxay dhahday labada wiilo waaweyna jaamacad way ka baxeen shaqay heleen kuwii kaleeta ay kaa gacanta ku haayaan ani hooyadaya la ii keenay waa la ii daaweeyey tiri hadda waxay dhahday ninka weli wax mau dhalin laakiin uura u leeyahay tiri gabadheydina anaa heesto alxamdulilah nolol heer sare ahaan ku jiraa laakiin rafaadka aniga aan soo maray dhahday yacni qof soo maray inuu adduunka jooga ma umalaynayay tiri nolosha aaday u xanuun badantay tiri laakiin alxamdulilah xayaa xilway dhahday hadda nolol heer saraan ku jira alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxay tiri qisadaasaa igu dhacday anoo yar qisad tufuulati waaye dhahday inaa idinla wadaagaan jeclaysta anaa waxaan jeclaysta asxaabteyda qaaliga inaa idinka idinla wadaago fadlan haddii aad ka hesho videoga subscribe like share comment nagu caawa waa mahadsantihiin